maalin dhaweed baa waxa dhacday anoo raysla ka xiiranaya sheekada si fiican u dhageysta kuma dhaaran karayo laakiin waa run weeyaan ayaa nin ag fadhiyay baa waxa dhacday wuxuu iska duubayaa snap iska duubayaa afku taagaya dabnuhu dhaqaajinaya raguna de meelaha qaar inay dhaqaajiyaan ma saddexda meelood ninka weyn inuu dhaqaajiyaan loo galin garanaysan waa dabnaha indhaha iyo wixii jilbaaga hoosay ninkii wuxuu iska duubayaan la yaabanoo isla ninka weyn man xushoonin waxa sidii dumarku de wajiga khayraad jiniyada samaysanaya ayaa nin weyn ayaa soo hor istaagay ninkii baa ku yiri waa niyo bariyahan buu ku raadinayo maalintii dhaweed arooskii aynu tagnay meherkii la isku laayay ayaan rabay inaan su'aal ka weydiiyay horta arrintii maxay ku dambeysay ninkii baa ku yiri ha arooskii waa khamiistii la isku laayay kelmadii xaq ahayd buu yiri waa soo hadalka u dhigay kelmadii xaq ahayd markuu suldaanku yiri ayay waa ku reerkii kala iswaalay waar ninkii weynaa baa ku yiri waar muxuu de suldaanku hadlay ma suldaanka weyn ee yiri sodohda jeceeloon isnaqaanay baa leedahay kelmad xaq buu yiri waar deegaankaygu dhan laga goyo kelmadaasi xaq baa hayde reerkiiga kiiska iska walay ilaahay haba yaabi keenay kor bay u hadlayaan wuxuu ku yiri waar wixii doonta maxaa sidii bay isku laayeen meena markii wuxuu yiri suldaanku kelmadaa yiri waa tii sodohdii habeenkiiba live soo gashay ee hilfaha baalaha ka garaacday kadib odayaal ergaa dhex galay odayadii markii meeshii yimaadeen bay yiraahdeen waar hadii ay suldaankii iyo sodohdii kala calaf qaadeen caruurta yaa la yimid jabine hal isku meheriyo markaa wuxuu yiri waan iloobayna ku soo sheegay jimcihii baaba meherkii dhacay odagii baa ku yiri waar xitaanaan imaadeen baba meesha lagu dhintay dad soo sheegtay laakiin kuwaas indhay isku raagaya ilama laha wuxuu yiri jimcihii buu meherku dhacay markaa gelinka hore markuu dhacayo muxuu ahaa meherku ayaa hoolka gudihiisa gelinka dambena arooska lagu qabanayay maalinimada markaa jimcihiiba waa la isafgaran waayay sabtidii way kala tageen ninkii buu ilaahay yaa keenay ninkii baa ku yiri waar masuudadii markaa suldaankii baa dagaal kale dhex maray maye wuxuu ku yiri in ka rabay in lagu wareego oo lacagta hoolka raysiga bixinayay suu yaa wareega si loo wareegaya dasootan aroosyada inta kursi loo dhigo ay aroosadu taashidin ku wareegto hees nacabka buufinaysana loo qaado 100 jeer baa aroos lagu wareegay aragtay maxaad laga waalaysaa uu ku yiri wuxuu ku dhinaad riga dhaar wallahi aan wax lagu wareego aroos sidoo iskar fadhiisanay ugu dambeysay laakiin markaa maxaa dhacay markaa inay ka rabay in lagu wareego inuu kuna bahal ficil miidhan u haayo wuxuu yiri maxaa lacagtu iga baxaysaa dad lagu wareegay aroosadina weydiito intaas ku kala tageen marka waxaan bilaabayaa maasadii sheekadaas la wadaag sheekadaas inaan ku riyooday in layga sheekeeyay inaan sameeyay in cid ka xaday ma kala garanayo kumana dhaaran karo laakiin maqnaatiyay leedahay abka Dahab Plus oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shiil Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Plus habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarlii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121